wiilkan dhalinyarada ah Nick Charlie ayaa la yiraahdaa waa 23 jir YouTuber waaye waxaan arkay xitaa Focus News oo xadii wareysatay oo dhahaya wariye madax bannaan oo 110 milyan oo dollar oo musuqmaasuqa hal maalin ku soo ogaaday marka muuqaalkii oo jimcihii barihiisa bulshada uu soo galiyay dhinaca YouTube-ka 2 milyan ayuu marayaa dhinaca X ama Twitter loo aqoon jiray 124 milyan oo daawasho ayuu marayaa muuqaalada uu TikTok soo galiyana 8 milyan ayaa ugu yar inta daawatay marka viral ayay noqdeen sabtidii iyo xadii maadaama jimcihii uu soo galiyay sabtidii iyo xadii aad ayaa loo share gareeyo loo daawanayay wiilkan dhalinyarada horta waa nin taageerayaasha maaga kamid oo xisbiga Trump oo Trumpna aad u taageera waa kan isagoo aqalka cad joogo bishii October 8deedii madaxweynuhu mar uu fikrado ka dhageysanayay dadka taageerayaashiisa marka ninkan waxa uu jecel yahay cadaanka ee Nick Charlie la yiraahdo waxyaabaha controversialka ama muranka dhaliya inuu soo duubo waxa uu tagay howlgaladii ay ciidamada madaxweynuhu u diray sida New York, Chicago iyo Los Angeles meelahaas ayuu muuqaalo ka soo sameynayay marka nin xitaa ma ahan aan u malaynayo inuu heer jaamacadeed gaaray xitaa high schoolka inuu drop out yahan u malaynaa maadaama 23 jir uu yahay waxaana la leeyahay 2015 ayuu YouTube kan samaystay marka waa nin dhalinyaro ah oo waxyaabaha muranka dhalin kara raadiya marka ninkan sidaas ayuu yahay marka fiidiyoyaashii markii sabtidii iyo jimcihii ay viral noqdeen madax ka tirsan maamulka Trump ayaa ka soo jawaabtay waxa kamid ah taliyaha FBI-da oo yiri arrintan baaritaan ayaan ku sameynaynaa waana qayb yar oo kamid ah musuqmaasuqa marka waxay leeyihiinba musuqmaasuqa sida la filayay waa ka balaaran yahay Soomaalidu musuqmaasuq sidaas ka balaaran ayay ku lug leedahay waxa sidoo kale ka soo hadlay in afayeenka aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka Mike Johnson oo yiri guddiga la xisaabtanka dawladdu arrintaasi waa inay baaritaan ku sameeyaan gudoomiyaha gobolka Tim Walz iyo waliba xeeraliyaha guud Keith Ellison arrimaha baaritaan waa in lagu sameeyo sidoo kale waxa soo baxday wiilka madaxweynuhu dhalay oo Donald Trump Jr. ama Don Jr. la podcast uu leeyahay oo Trigger la yiraahdo sidoo kale inuu ku soo qaatay marka Elon Musk ayaa sidoo kale ka hadlay marka xubno kala duwan madaxweyne ku xigeenku xitaa waa uu ka soo hadlo bartiisa X ayuu qoraal ku soo qoray waxa uu leeyahay wiilkan dhalinyarada musuqmaasuq balaaran ayuuna tuso indhaha ayuu noo kala furay Trump wali ma uusan ka soo hadlin laakiin inuu ka soo hadlo ayaa laga yaabaa haddaba markii sabtidii iyo xadii uu muuqaalada wiilkan uu soo galiyay barihiisa bulshada ay viral noqdeen waxa qasab noqotay bal arrintan maxaa ka jira bal baaritaan hal lagu sameeyo horta ninkan dhalinyarada waxa uu sameeyay saacado ka baxsan saacadihii daykeeradu ay shaqeynayeen ayuu goobta tagay hadda midda ugu muhiimsan uu soo qaato oo xitaa uu leeyahay calaamada meesha ugu dhaganeed waa ay qaldan tahay oo quality learning Charlie Care la yiraahdo oo xitaa qalad yar uu ku jiro learning ahayd meesha learning laga rabay albaabka gadaal ayuu soo istaagay waxa jira albaabka main-ka ah oo laga galo waxa ku dhaganeyd waraaq ah in saacadaha uu shaqeeyeen 8 saac oo duhurnimo ilaa iyo 4 saac oo habeenimo meesha ayay ku qoran tahay ma uusan soo duubin marka waxa loo malaynayaa inuu tagay saacadii hore wixii 6 saac ama 7 saac ka horeeyay oo maalmeed inuu tago muuqaalkaas soo duubay albaabkiina oo xiran u arkay marka nin dhalinyaro ah oo maamulo ka ah daycare-kaasi uu tagay ninkan cadaanka ah oo magaciisa Ibrahim Ali la yiraahdo waalidiintiisna ay leeyihiin ayaa ka hadlay arrintaas waxa uu yiri musuqmaasuq iyo magaca Soomaalida ayuu doonayaa inuu is saaro laakiin waxa uu yiri Isniinta ilaa iyo Khamiista ay furan tahay goobtan waxaana joogta caruur 50 ilaa iyo 80 u dhaxaysa sidaas darteed waxa uu yiri bal imaada wariyaasha ayaa u tagay shalay imaada ayuu yiri maalmahaasi bal inaad aragtaan inay xiran tahay inaysan baabuur banaanka oolin inaysan caruur joogin waad kala arki doontaan marka ninkan cunsuriga waxa uu sameeyay saacadii hore ayuu buuqday oo meeshii ay xirneed markaasuu yiri malaayiin dollar ay qaataan daykeerada Soomaalida waana kuwan waa iska xiran yihiin oo wax caruur kuma jiraan albaabadooda waa ay xiran yihiin kuwa kale uu tagay waa kii haween ugu tagay oo haweenka qaar ku xitaa iska qarinayeen ama ay ka carinayeen arrintaasna ma wanaagsana waa la iska celiyaa isagana muuqaal ayaa laga duubaa booliskana waa loogu wacaa haddii arrintaasi dhacdo marka Soomaaliya ha iska dhigina dad iyagu wax qarinaya oo markay camera arkaan ka dhuumanaya camera haddaad aragto adigu telefoon haysta aadna duub marka inaad ka cararta maaha marka bal wiilkan Soomaaliga ah oo madax ka ah quality learning Charlie Care meeshii uu ninkan cadaanka tagay uu soo duubay bal hadalkiisa wax yar ay la daawada Are you trying to record that we're doing fraud, or are you trying to put the Somali name and then fraud in the same sentence? There's no fraud going on whatsoever. He came, I think it was 11 a.m. Obviously, there's no cars in the parking lot. If you look around, there's cars now. Yeah, because our employees are here. Our children are here. You guys can come tomorrow. You guys can come on Thursday. You guys can come back Monday. If there's not this many cars, let me know. There'll be this many cars. sidoo kale wasiirka amniga Kristen Noem ayaa iyaduna shalay waxay soo gelisay
in saraakiil ka tirsan waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa ee wasaaradda amniga gudaha ay shalay tageen goobihii wiilkaasi cadaanka uu soo tuubay ee dhaykarada. Dhaykar waxaa loo yaqaanaa dadka aan garanaynin meelaha carruurta marka waalidiintu shaqo ama dana kale ay leeyihiin ay geeyaan islamarkaana lagu sii hayo hadhowdii waalidku markuu danihiisa soo dhammaystana uu carruurtiisa ka qaato. marka wasiirka amniga gudaha waxay barteeda X ku soo qortay baarayaal ka tirsan wasaaradda amniga gudaha ayaa hadda ku sugan Minneapolis hadda aan baaraya baaritaanna ku sameynaya arrinta la xiriirta goobaha carruurta lagu hayo oo musuqmaasuq baahsan laga soo sheegay. sida aad aragtaan dad ayay su'aalo weydiinayaan oo ay taagan yihiin. marka sidoo kale waxaa jirta haweeneyda gobolka Minnesota waaxda u qaabilsan dhinaca carruurta dhalinyarada iyo qoysaska madax ka ah ayaa iyaduna hadashay. waxay tiri shalay inaguna waxaan u dirnay dad bal soo eega musuqmaasuqan la sheegayo videoga ku jira in carruur goobahaasi aysan joogin in ay soo ogaadaan. dadkii waa ay tageen carruurtii waa ay ku soo arkeen. waxay tiri waxaan sameynaa 6 biloodba mar booqasho aan horey loogu sii sheegin goobaha dheekirada oo laga duldhacayo. maxaa la eegaya carruur ma joogaan meesha carruurta ciriiri ma ku tahay ma ku filan tahay carruur badan miyaa joogto aan loogu talagelin meesha oo aysan qaadi karin nadaafadda la fiirinaya biyaha ay cabayaan cuntada ay cunayaan waxyaabaha soo idil ayaa la soo eega. marka waxay tiri wax lacaga kama jaran doono ilaa hadda annagu wax musuqmaasuqa ma aanan arkin. waxayna sheegtay in ay sii wadi doonaan videoga eedeymaha ka muuqda. waxay tiri waan baari doonaa. marka wiilkan dhalinyarada 10 goobood ayuu booqday. 2 ka mid ah waxaa la leeyahay dhowaan ayaaba la xirayba oo arrimo xadgudub ayaa lagu arkay. laakiin 8 kale waa ay shaqaynayaan isla markaana lacagahooda kama jaran doono. waxay tiri way sii shaqayn doonaan. bal iyadoo arrimahaasi ka hadlaysay haweeneyda la yiraahdo Tiki Brown oo waaxda gobolka Minnesota u qaabilsan carruurta dhalinyarada iyo waliba qoysaska Soomaalidu waxay u taqaanaa kuwa carruurta qaata ay madax ka tahay. bal iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana waxay tiri All child care centers in Minnesota receive one annual visit from the Department of Children, Youth and Families from our licensors, and these visits are unannounced. I think we have questions around when were these visits, when were the videos taken? For instance, were they during times that the center was scheduled to be open? Was it during the weekend? I think there's some clarity and questions that we'd like a little bit of additional information on. dhinaca kale Ilhaan Cumar iyo ninkeeda ayaa lala xiriirinaya arrintan. waxaa leeyahay Ilhaan Cumar dhaqaalaheeda kor ayuu u kacay sidaas darteed lacagta musuqmaasuqa ayaa dhinac ka soo galaysa. hadda bal fiiri waxay leeyihiin 2019 45,000 ayay ahayd lacagta ay leedahay laakiin hadda 30 milyan ayay maraysaa 2025 mushaarka ay Congress-ka ay ka qaadatana sanadkii waa 174,000. marka waxay leeyihiin 3,500 boqolkiiba ayaa kor u kacay dhaqaalaheeda oo hadda 30 milyan iyo ka badan ayay maraysaa. xitaa saygeeda waxa la leeyahay Rosley Capital Company la yiraahdo uu leeyahay waxa uu ahaa 2023 $1,000 ayuu qiimihiisa laakiin hadda waxa uu dhaxeeyaa 5 milyan ilaa 25 milyan. marka xagee lacagtaasi ka timid ayay sidoo kale leeyihiin. marka waxaa jirta xubin uu ka mid ah xubnaha Congress-ka ee laga soo doorto gobolka Minnesota isla markaana Republican hoggaanka xisbiga Republicanka ee aqalka wakiiladan ku jira oo la yiraahdo Tom Emmer ayaa xalay qoraalkan waxa uu ku soo qoray bartiisa Facebook. Breaking ayuu ku bilaabay degdeg. wuxuu yiri waxaan ku baaqayaa in dhalashada lagala laabto lana masaafuriyo qof kasta oo Soomaaliya oo ku lug leh musuqmaasuqa gobolka Minnesota. marka fariinteedana hoos ka akhrista ayuu leeyahay. waxa uu leeyahay 3 eray ayaan leeyahay Soomaalida musuqmaasuqa gashay isla markaana lacagta canshuur bixiyaasha Mareykanka musuqmaasuqday. Send them home. bal gurigoodii u dira oo wadankoodii dib loogu celiyo ayaan leeyahay yiri. sidoo kale waxa uu sheegay xitaa haddii ay sharci yihiin oo sharci haystaan waa in si degdeg ah lagu masaafuriyaa isla markaana dhalashada lagala laabtaa. waxaana uu sheegay in degdeg loo baahan yahay in wadankoodii dib loogu celiyo. xitaa wuxuu yiri haddii loo baahan yahay in sharciga Mareykanka wax laga bedelo diyaar ayaan u nahay uu yiri inaan sharcigaasi wax ka bedelno haddii aan Congress-ka nahay isla markaana aan u codeyno in wax laga bedelo sharciga si loo masaafuriyo. wadankeenu uma dul qaadan kara ayuu yiri in laga faa'iideysto sadaqada la bixiyo isla markaana dadka diidan ayuu yiri inay dhaqankeena la jaan qaadaan. waxa uu sheegay in aysan wadankan u qalmin inay sii joogaan. marka wuxuu yiri haddii xitaa loo baahan yahay dhalashada in lagala laabto Soomaalida xiriirka la leh argagixisada sida Al-Shabaab oo kale ururada argagixisada sida Al-Shabaab oo kale waxa aan doonayaa yiri in dhalashadooda lagala laabto isla markaana si degdeg ah wadankoodii loogu diro. waxa uu sidoo kale sheegay Soomaalida iyaguna ku lug leh
immigration fraud oo dhinaca immigrationka musuqmaasuq ku lug leh iyagana sidoo kale waa in la sameeyaa sida guurka dadka isku keena walaalo isdhalay anagoo walaalaha ayaan isqabnaa isku keena ayuu ka wadaa oo hadda Soomaalida lagu eedeynayay muddooyinkii ugu dambeeyay oo xitaa waaxda USCIS ay baaritaan ka samaysay September gobolka Minnesota dadkaasi haddii lagu helana wuxuu leeyahay waa in wadankoodii dib loogu celiyo marka videogii wiilkii cadaanka uu duubay marka waxa ka dhalatay falcelintaasi aadka u ballaaran oo xitaa Washington gaartay laakiin inta badan waxyaabaha uu sameeyay hadda waxa la ogaaday in ay been yihiin saacadihii aysan furnayn goobahaasi daykeerada inuu tagay isla markaana muuqaaladaasi uu soo duubay laakiin isagu meeshii uu la rabay waa ay gaartay xubnaha Republikaanka ee ku jira baarlamaanka gobolka Minnesota ayaa waxay ugu baaqayaan hadda gudoomiyaha gobolka Minnesota inuu iscasilo waxay leeyihiin musuqmaasuqan waxa uu dhacay intii uu xilka hayay isla markaana waxa jiray calaamado cad oo muujinaya in musuqmaasuqan uu jiro laakiin muddo sanadaha ayuu sii socday musuqmaasuqan sidaas darteed waxay leeyihiin waa inuu iscasilaa laakiin sida muuqata isaguna isma casili doono hadda xitaa warar ayaa sheegaya xildhibaanadii Melissa Horman oo iyadu la dilay bishii June oo ninkii cadaanka uu dili jiray in waatii waraaqa la helay magacyo dad ay ku qoran yihiin oo xitaa la yiri gudoomiyaha gobolka ayaa ka dambeeyay marka hadda waxa ay la xiriirinayaan musuqmaasuqan iyo dilka xildhibaanadaasi ayaa la isla xiriirinaya oo waxa la leeyahay waxbay ogeedo arrintan uma aysan u dul qaadan rabin oo ay ka hadli rabtay sidaa darteed ayaa loo dilay